Assalaamu calaykum. Waan idin salaamay dhammaantiin. Maanta waxaan idin hayaa qiso cajiib ah. Waxaanay ku dhacday gabar 3 sano jirta. Ugu horreyn haddaad halkan ku cusub tahay nagu soo biir subscribe channelka. Sidoo kale dadka heshay video wanaagsan una sii share garay asxaabtaada. Baad mahadsan tahay. Qisada gabadha ku dhacday waxay ka bilaabmaysaa gabar 3 sano jir ah ayaa ku dhacday heel laga tegay oo 20 mitir hoos u dhacay. Dhexroorka ceelku wuxuu ahaa 30 sentimitir oo keliya, maadaama uu ceelku aad u yaraa dendemashadu uma soo degi karaan si ay u badbaadiyaan sinaba. Haddii ay isticmaali lahaayeen waqtigaas qodista, waxay qaadan lahayd waqti aad u dheer, aad u badan. Maalintaas, nin iskaa wuxuu qabso ah ayaa soo kaxaystay wiilkiisa, wuxuuna sheegay in uu wiilkiisu isku dayi karo inuu badbaadiyo gabadha. Wiilkan ayaa da'diisa lagu sheegay 14 sano jir, waxaana lagu magacaabi jiray Imraan. Si uusan qof walba welwelin, been buu sheegay isagoo leh waxaan ahay 17 jir. Dab-demiska ayaa ku wargeliyay khatarta suurtagalka ah. Imraan iyo waalidkiis waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay qaadaan dhammaan khataraha suurtagalka ah. 5 jeer ayuu isku dayay balse uma guuleysan. Mar koowaad iyo mar labaad waa inuu soo baxo si uu u hagaajiyo xagasha soo degaysa. Mar saddexaad ayuu gabadhii ku dhaha cabsan, waxaan u imid inaan ku badbaadiyo. Markii 5aad ayuu maqlay gabadhii oo ku tiri ha tegin. Wuxuu u qalbi qaboojiyey gabadhii oo uu ku yidhi ha cabsan, dhaqso ayaan u soo noqon doonaa si aan kuu badbaadiyo. Markii 6aad ugu dambeyntii uu sameeyey. Kadib wariye ayaa weydiiyey inuu cabsaday iyo in kale. Wuxuu sheegay in uu waqtigaas aanu waxba ka fikirin oo uu ka fikirayay sidii uu badbaadin lahaa gabadha.